السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف بينوتاي كل جين إن هالكن سجون معنا. إلا قوم مثلنا قرن كان جمهورية الصومال الآن. رنتي تاريخ هان يوحل السواق بتاعي يوحل قبض دونا ولا شيكي. وحادي عاد أين غلا. waxyaalaha dadku marka aad galbeed iyo bariba u socoto waxyaalaha dadku ku galo ama ay dareemaan inaanay had iyo jeer isku xidhnayn waxa ka mid ah magaca NGO-ga iyo dawladnimada waxaa jirta dad badan oo dadka wax u qabanaya oo si milgo iyo maamuus la wax ugu qabanaya oo ay ka mid tahay hay'adan NGO-gan barwaaqo oo kale waxaa jira kuwo si khaldan oo maamuuskii iyo milgihii luminaya dadku ku aamini lahaa iyaga oo ku shaqaysanaya NGO-yo uga faa'iideysta dana gaara dabadeedna dadku waxay ka aamin baxeen mararka qaarkood kelmadda NGO-ga aad iyo aad waliba waxay ugu badan tahay xagga bariga ayay aad ugu badan tahay waxaa dad baa intay deegaanma yimaadaan waxay ku yidhaahdaan waxaanu idiin qabanaynaa wax ha ugu badnaadeen biyaha dabadeedna qofkii lahaa waxbaanu idiin qabanaynaa kama dhammaado meeshii uu wax ka qabanayay caa'iladiisii iyo reerkiisii iyo dana gaara iyo beero gaara iyo ayuu uga faa'iidaystay taasi waxay keentay in dadku ay ka qaadaan cuqdad waxyaalo dad fiicani qabanayaan sababta aad hadalkeedii hadda ka garanaysay shukri iyo khatraba in dhib badan laga soo arkay dadka mar allaale marka la yiraahdo waxa la qabto in dad badani ay resistance samaynayaan resistance-ka dadku samaynaya calaamado ayay meelo qaarkood ka arkeen ama ay ku dareemeen waxaa dhacda wax kasta oo dawladdu keento ama xukuumaddu keento in loo aqoonsado shakhsi which is wrong waxaa jira raashimo badan baa la qaybinayaa dad baa lacag la siinayaa wasaaradda qorshaynta ay hoos timaadaa wasaarad kale ay hoos timaadaa ummad baa lagu taageerayaa waa la personalize garaynaya xukuumad baa qorshaysay warshii qorshayn bay soo martay line ministry bay soo martay dawlad baa ka soo shaqaysay waxaa laga yaabaa NGO-gii implement garaynayay inuu personalize gareeyo doorashadii hadda ayay soo martay dadka iyadoo practical qof wax la siiyaa ma jiro ee waxaa jira qof shaqeeya ka gees ummadda reer Somaliland from Geesdiir ilaa iyo meesha la yiraahdo Ceelaayo waxaan u sheegaynaa waxa ummaddu leedahay ee dawladdu qabanayso inay yihiin wax ka dhaxa laakiin shakhsi Somalilandani uu ka shaqayn karaa uu wadi karaa uu implement gareyn karaa macnaheeduna maaha in qofkaasi leeyahay maaha macnaheedu qaran ahaan وطلاب إنه هرو قاعدين ما دام أرين لقى رنتي لقفاني كرويه إنه نحن ما أنت وحين وتر ثمنا جيس كأفريقيا وارون أنا وحنا مالنا يا كل إنسان شغوين بدن إنما دحمرين لكن قطرة إلهي كل دوري سكاشكي سطحي سكاشكي أفريقيا سكاشكي وهو قرنا يا iyadoo shaqeynaysa
marka dalka waxaynu uga baahannahay inaynu garanno inaynu dadka u shaqayno qofka ummadda waxeeda ku shaqaynayana saleebaan ahaan maanta wasiir baan ahay wasaaradda warfaafintaan ahay qalab badan iyo hanti badan iyo dhul badan iyo meelo badan baan ka mas-uulahay macnaheedu ma aha in waxaa saleebaan leeyahay oo wax ummadda reer somalilan leedahay qofka NGO-ga ka shaqaynaya waa qof hawshaa maalinlaha fulinaya laakiin waxa dadka iyo ummadda iyo maamulka ummadda reer somalilan baa inaynu sidaa u kala fahanno ayuunbaa mudan goobo badan iyo meelo badan baanu hadda ku aragnay oo nala kula kaambeyn gareeyey meelo badan iyo goobo badan baanu ku aragnay in xaqii ummaddu lahayd iyo dadka ummaddu wixii ay xaqa u lahayd ee dawladdu u soo gudbisay in la beersanaalays gareeyey oo shakhsi sheegtay oo bulshadii nagu tidhi hebeloo waxaana siiya ayaa nagu yidhi haddaydin waxaa yeelin hantidayna gaafaadhi soo martay ee uu isagu qorsheeyey NGO-ga fulinayey yaa dadka amraya wuxuu ku odhanayaa amarkayga qaata oo sidaa yeela haddii kale xoogaagaan idinka jaraya waa arrimaaynu u baahannahay dadka inaynu fahansiino runtii xukuumad ahaanna aynu si dhow ula soconno si dhow waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay ujeeddadeeda ina gaadhsiiyo waxaynu joognaa meel aad u qurux badan anigu runtii nature-ka waan jeclahay oo geel jiraan ahaan jiray geel jire inaa gaafaadhi isagu weligii geel ma raacin laakiin anigu geel baan muddo intii aan yaraa iyo intaan iskuulka marka aan ka noqdaba geelun baan raacay waxbaa ka jira dhulka aan ku raaci jiray ma dhir badna laakiin wuu caws badan yahay wuu caws badan yahay aad iyo aad baan nature-ka u jeclahay waana ku ammaanayaa qof kasta oo muwaadina oo reer somalilanah oo tallaabo ku darsaday arrintan waxayna meeshani tahay meel historiga sida dadku u sheegay oo muddo fara badan ay dadku u soo isticmaalayeen meelo qofku self refreshment uu ku qaato ama marka uu u baahdo inuu bedelo hawada uu imaan jiray muddadii 60 sannadood ugu dambeysay dad badan baa sheekadooda wixii 60ka ka weyn ama wixii 65ka ka weyn haddaad la sheekaysato ee reer Hargeysa ahaa geed deeble waa ku soo celcelinaya way ku soo celcelinayaan inuu tegey inuu aroos ku soo qabteen inuu sheeko inuu iskuulkii inuu wax badan buu ugu soo celcelinayay beerta hadda baan u malaynayaa shukri lagu wareejiyey wasaaradda xanaanada xoolaha lahaan jirtay wasaaradda xanaanada waxaa loogu talagalay meel naaxina bay ahayd maraan wasiirka xanaanada xoolaha ahaa 2000kii 2000 waxaan ku wareejiyey mar la isku qabqabtay waxaa markaa runtii dadku inay dad deegaanku fiican yihiin way ii yimaadeenoo waxay igu yidhaahdeen beertii waa tan haddii aadan adigu gacanta ku qaban waxay ku dhacaysaa si khaldan baa loo isticmaalaya marka dadka deegaanku sharaf bay leeyihiin markaa waxaan ku wareejiyey oo hayay nin caaqiloo la odhan jiray xaashi inuu dhintay baan u malaynayaa waa garanayaan baan u malaynayaa dadka deegaanka ayaan ku yidhi inta dawladdu ugu imaanayso markaa dawladduna ma awood badnayn warbarinta dawlad ahaan aanu is urursanayno noo sii hay waa 20 sannadood ka hor waqti laga joogo hadda baan u malaynaya 20 years ago miisaaniyadda waddankuna markaa 17 milyan bay ahayd aanu ku shaqaynaa maantana waa 400 milyan ayay ku sii dhowdahay saacataasuu maamulaa annaguna markaa 17 milyan bay ka yarayd the whole country sida uu dhan yahay waayo badan iyo waqti badan baanu soo joognay waddankuna horu u socdaa
inaynu aaminno un baa loo baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu